wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka muuqaalka ee VOA qayb ka mid oo idinka imaanaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Hana Bashiir Salaad oo madax ka barnaamij la doonayo in macallimiin lagu soo saaro kaasi oo ay garwadeen ka tahay jaamacadda Augsburg ee ku taala xaafadda Cedar ee Soomaalidu ku badan tahay gobolka Minnesota. Hana Bashiir ayaan jeclaa barnaamijkan ku soo dhaweeyay. Hana ku soo dhaw barnaamijka muuqaalka VOA. waa mahadsantahay walaalo saad igu soo invite gareysay programka in igu soo dhaweysay. anaguna waanu kaaga mahadnaqaynaa waqtiga qaaliga nala qaybsanayso maanta dabcan barnaamijkan aad ugu magac darteen barnaamijka macallimiinta ka soo jeeda bariga Afrika ee lagu siinayo lagu tababarayo aqoonsina ay ku helayaan marka dambe jaamacadda adigu aad ka tirsan tahay ay scholarship ka ama deeqda waxbarasho ku bixinayso marka hore bal waxaad iga warantaa barnaamijkani waxa uu yahay iyo guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay waxa loogu talagalay. Okay, so barnaamijkan runtii wuxuu ku saabsan yahay macallimiinta mustaqbalka ee dadka u dhashay bariga Afrika. waxa loogu talagalay inaan soo saarno macallimiin K12 ah kindergarten ilaa 12th grade. Class koowaad ilaa 12aad. Class koowaad ilaa 12aad. macallimiin ardada wax bari karta. marka maxaa loogu baahday barnaamijkan in la sameeyo? baahida keentay waxa weeye hadii aan fiirno mesela gobolka Minnesota macallimiinta midabka madow leh nooc kasta ha isugu jiraan aad bay u yaryihiin waa 4%. waxyaabo research badan ama baaris badan oo la raadiyayna waxa lagu soo helay in ay muhiim tahay in ilmihii uu heesto macallin ay isku dhaqan yihiin ama isku midab yihiin oo isfahmi karaan. waxa also la soo ogaaday in ilmihii markuu heesto macallin ay isku midab yihiin in waxbarashadiisa ay ka fiican tahay kuwa kale. waxa la soo ogaaday in ilmihii iskuulka laga soo ceerinayo maalin walba ay yaraanayso niyadiina runtii because qofku wax ku bartaa niyadiina u dhisnaata waa ilmihii marka niyadii ay maxaa la ahaa dilneedna inuu u dhismayso uu arkayo macallinkii uu dhahayo qofkan isku dhaqan baan nahay isku meel baan ka nimid mararka qaarkood soodan inuu kor u fiirinayo ilmihii rabo inuu wax barto niyadu hay waxbarashada. marka barnaamijkan qofkii u baahan ama doonaya in uu macallinimadan soo codsado tababarka aad siinaysaan jaamacadda maxaa marka qofka looga baahan shuruudaha uu soo buuxinayo qofka maxay so programkeena waxaan qaadanaa laba macallimiin oo kala duwan. so horta muhiimada koowaad waxa waaye in qofkii uu noqonayo macallimnimada ugu horeysay first license waxay dhahaan macallin qof soo ahaan jira ma qaadano waa number 2. number 2 waxa waaye in qofkii uu ama yahay mesela hadii aad major kala haysatay jaamacad ku soo qaadato undergrad-ka ku soo sameysay ama biology ha ahaado ama cilmiga maxaa la science ga ahaado aad rabtidna in aad macallin noqotid programkan waa apply gareyn kartaa and masters kaaga ayaa ku sameyn kartaa. waxaan haynaa 14 bahashi maxaa la programs oo kala duwan oo aad ka dooran kartid. hadii aad tahay undergrad oo qof hadda bilaabayo maxaa la undergrad hadaa tahayna waxa muhiimad yahay inaad 2 sano soo qaadatid oo generalka waxay dhahaan ama 60 dhibcood inaad maxaa lahaa aad leedahay markaad u soo transfer gareynaysid Augsburg ansa u waxeeno and then ideada muhiimad waxa waa inuu qofkii uu ahaado East African descent so inuu qofkii ka imaaday bariga Afrika uu ka imaaday waa qasab waaye also GPA-diisa iyo waxyaabo badan oo kale iyo taxaamo la qaatay ayaa jiro. marka macallimiintan tababarka la siinayo oo adinku dabcan sida aan ka warqabaad soo bilowdeen sanadkii 2013 ilaa haddana wali aad wadaan tirada macallimiinta ka faa'iiday ama wax ka soo baratay intay laagtaa waxa runtii programkan gasho oo horta laga aqbalay 42 arday markaas 42daas arday 39 kamid ah ama programku ay ka qalin jabisay ama se hadday ku jirtaa processka ay ka qalin jabin lahaayeen hadii la yiraahdo 20 iyo marka 39kaas 23 kamid ah
way dhameeyeen oo macallimiin bay ka yihiin Minnesota meel kasta mid muhiimadan waxa waa inaan soo saarno macallimiin Minnesota ardayda maadaama Soomaali inta ku badan tahay iyo East African community inta ku badan yihiin macallimiin Minnesota wax ka barayo adiis 2 sano ama 3 sano hadda programkeena qaataan 16 ardaydaas 39 kan soo sheegay 16 kamida hadda program ku jiraan waxaan rajaynaynaa 2019 ka dhamaadkiisa insha Allah fall inay dhameeyaan programkeena gobolka Minnesota dabcan cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday in ardayda kalarka ama laga tirada badan yahay in waxbarashadoodu ay ka hooseyso kuwa kale markii la sii kala qaado dadka madow oo Soomaalidu ay kamid tahay yihiin kuwa aad u sii hooseeya waxbarashadooda طبعا وهو wanaagsan in la soo saaro macallimiin Afrikaan waliba Soomaali u badan oo gobolka Minnesota oo wadkii Soomaalidu ognahay waxbarashadu heerka ay tahay caawinay miyay jiraan qaab ama hanaan lagu ogaanayo marka macallimiintii jaamacadda ka soo baxay ee shaqooyinka helay inay wax ka tarayaan heerkii waxbarashada runtii tan koowaad horta lagu ogaan karo waa baaritaanka markii hore soo sheegay oo baaritaamo badan iyo research badan la soo sameeyay oo kaliya ma ahayn East African iyo Soomaalida kaliya ma ahayn lagu soo sameeyay dadka wadanka u dhashay ama ha ahaadaan African American ama ha ahaadaan Latino American ama Asian American waxa la soo ogaaday ilmahu markay haystaan macallimiin isku midab yihiin ama isku dhaqan yihiin in uu ilmihii waxbarashadooda ka fiican tahay kuwa kale marka hadda macallimiinteena programkan ka soo baxay relationship baa wali la leenahay way noo imaadaan ardaydeena ay caawiyaan haday noqoto markay isu teaching sameynayaan mararka qaarkood waxa qabnaa shirar ay noogu imaadaan oo ay ardayda cusub ay kula hadlaan laakiin hadii weydiinaysa exactly waxay sameeyeen ma la soo raadiyay way adag tahay taas in lagu cabiro because macallimiinta waxay ka shaqeeyaan iskuulo badan so way yara adag tahay macallin kasta inaan soo ogaano okay muxuu san caawin laakiin kolaani waxaan marxaati ka ahay 2 jeer oo laga marti qaaday galaasyo ay macallimiin East ka soo baxay ay dhigayeen in galaaska aad ka garanayso ilmaha farxadda ka muuqdo iyo kalsoonida macallinka uu ardayga ka haysto oo ahayn like waxayga ma garanayo qofkan waa qofkayga waay marka waa wax weyn yani isfahan isu soo dhawaasho ardadii iyo macallinkii inay halkaas ka jirto deeqdan waxbarasho dabcan markaynu ka hadalno macallimiinta lagu soo saaray qofkii raba macallinimada inuu noqdo dhammaan qarashkii kaga bixi lahaa waxbarashadooda ma ka wada kaafinaysa ama si qofka dhinaciisa laftiisu waxba ku dhiman oo jeebka wax ka bixinaya runtii ardadeena waxaan ka codsanaa programkan wuxuu programada kale uu kaga duwan yahay waxa waaye full scholarship baan hana waxaan ka bixinaynaa ama how undergrad ina sameynaysa ama how masters level ina sameynaysa wax alaali wixii tuition kaaga ku saabsan waan ka bixinaynaa as long as lacagtan state ka helayno lacagteena waa taxpayer money waa state of Minnesota ayaa nasiisa waan bixinaynaa waa full tuition waa ardayga kaliya marka waxa laga rabaa meesha inuu la imaado inuu rabo wixii inuu barto inuu hamiyad u hayo inuu xiiso u hayo oo wixii uu asaga ficilkiisa muujiyo qofkii marka u baahan inuu barnaamijkan ka faa'iideysto dabcan aan filayo inuu baahi badan gobolka Minnesota looga qabo arday badan aad u fara badan oo Soomaaliya dugsiyada dhigtaan marar badan isfaham waa fara badan uu ka dhex jiro qayb waxbarashada dugsiyada qaar tagno ka warqabo muxuu qofku iyuu la soo xiriirayaa xageelada kala soo xiriiri karaa sidoo qofku barnaamijkan ku soo codsan karaa runtii dhowr waxyaabo bay nagu soo xiriiri karaan مثلا hadaa rabtaan ani magacayga waxa la Hana Salaad so hadii Augsburg University aad gashid website kooda an Hana Salaad aad dhahdid barnaamijkan uu ku soo baxaya because waa la shaqeeyaa barnaamijka hadii kalena hadaad gashid website kana education department in Augsburg hadaad gashid then East program is on the list waad ka helaysaa marka ka bacdina waxaad helaysaa faahfaahin weyn oo aan inta hadda ku soo yara koobi karin aad ka helaysaa barnaamijkan wuxuu yahay waxaan sameeyno iyo wax laga rabo aad baad u mahadsantahay daawadayaal taasi waxay ahayd Hana Bashiir Salaad oo madaxa barnaamijka macallimiinta lagu soo saarayo jaamacadda Augsburg ay ugu talagashay dadka ka soo jeeda bariga Afrika isla markaasina la doonayo community-ga ama bajaaliyada gobolku inay ka faa'iideystaan si ay waxbarashada ubadkooda mustaqbalka gacan weyn uga geystaan daawadayaal inta ay ku soo gabagabeynaya barnaamijkii maanta tan kula dambe oo mas'aadooda la sida iyo nabad galiyo